caleenta qaadka ama maydhaxda qaadka ee dadku uu calaashado ee waddamo badan oo ay ka mid tahay waddanka Soomaaliya lagu calaashado waxay ka baxdaa qaaradda Afrika iyo waddanka Carabta koonfurtiisa hoose ee xagga cadan soo xigta waxa waddankii ugu horreeyay ee qaadka lagu arko ama qaadka lagu cuno oo murqaankiisa lixiso ugu horreeyay waddanka Carabta xaggiisa koonfurood ee hoose ee la yiraahdo Arabian Peninsula caleenta shaaha ee maanta la cabo inta ayna soo bixin waxa meesheeda ku jiray oo dadku uu shaahaan u cabbi jiray qaadka hase ahaatee markii uu soo baxay shaaha maanta la yaqaan ee sida shaahaan loo cabo ayuu qaadkii wuxuu yeeshay waji kale oo uu sidii markii hore loo cabbi jiray ama loo isticmaali jiray ayaa waxay isu beddeshay majlisyo iyo meel ra'yiga la isku weydaarsado oo lagu murqaamo qaadku wuxuu ka baxaa waddanka Itoobiya ilaa koonfurta Afrika ee ugu hooseysa qaaradda Afrika wadamada u dhaxeeyo oo dhan inkasta oo ku kala badbadan yahay haddana waddan uusan ka bixin waxa la sheegay inuu ku yar yahay taariikhdii u horreysay ee waddanka Soomaaliya qaad uu soo galo ama qaad lagu calaashado xaqiiqdeeda aad looma hayo waxaase lagu qiyaasayaa muddo imika 100 iyo siyaado sano laga joogo in ay markii ugu horreysay waddanka uu soo galay qaad oo uu ka soo galay qaybta Hargeysa iyo Boorama dhinacooda isagoo ka soo gudbaya waddanka Itoobiya meelaha uu ka baxo ee lagu beero qaadka waxaaba ka mid ah magaalada Herar oo qaadka ka baxana Herar la yiraahdo oo uu soo gaari jiray una u soo gudbi jiray waddanka Soomaalida dadka qaadka cuna waxa ugu horreeyay ee qaad dhamiya nimanka culimada diinta ama wadaadada iyagoo markay ku murqaamaan qaadka ay u suurtoobi jirtay inay muddo dheer quraanka subciyaan oo ay aad soo jeedi karayaan berigii hore waxa wadaadadu ay qaadka oran jireen oo ay ku magacaabi jireen inuu yahay geed barakaysan oo barakadii Ilaahay iyo barakadii rasuulka wata oo quraanka iyo diinta islaamka lagu subcin karo loogu soo jeedi karo hase ahaatee maanta waxa la ogsoon yahay inuu qaadku uusan ahayn wax barakaysan oo baraka nabi iyo baraka Ilaahay toona uusan wadanin ee uu yahay balaayo dhaqaalaha Soomaalida iyo dadka sixadiisaba cadaw ah ilaa iyo muddo badan ayaan qaadka laga aqoonin waddanka Soomaaliyeed intiisa kale oo Burca iyo Berbere iyo wixii galbeed ka sii xiga ayaa lagu cuni jiray qaadka oo waddanka intiisa kale aan lagu aqoonin qaadku wuxuu kale soo gaaray bariyihii dambe inkastoo uusan ku badnayn magaalada Ceerigaabo hase ahaatee 1960kii markii jamhuuriyadda Soomaalidu ay dhalatay oo waddanku u israacay ayaa waxa Berbere laga qaaday iyo Hargeysa xoogay qaada iyagoo waddanka intiisa kale dhan ka boodaya ayaa waxa la gaarsiiyay magaalada Xamar isagoo Xamar la ogolayn oo qofkii lagu qabto lagu qaadi jiray xukun adag iyo ganax weyn